kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka Soomaaliya caalamka waa isniin taariikhdu ay ku beegan tahay 25 bisha koowaad ee January sanadka 2021 qodobada wararka waxaa kamid ah waxaan joognaa cirka meel kasta oo qadara caqabad nama jooji karto buuraha weyn oo laga baqo gacan baan la gaarnaa daruuraha madow ciidanka dowladda federaalka ayaa dib ula wareegay gacan ku haynta magaalada balad xaawo ee gobolka Gado waxaana dagaal ka dhacay ku qabteen ciidamo fara badan oo ka tirsan maamulka Jubbaland hase yeeshee wasiirka amniga ee Jubbaland ayaa la sheegay inuu si dirqi ah ku badbaaday dowladda federaalka ana way ka hadashay weerarkaasi iyadoo oo sheegtay in madaafiicda iyo gaadiidka dagaal oo ay wateen maleeshiyaadka ay lahayd dowladda Kenya caruur ayaa ku dhintay dagaalkii ka dhacay balad xaawo kadib markii uu madfac ku dhacay gurigooda qasaare fara badan ayaa jira warar dheeraad ah ayaa iska soo taraya faahfaahinna arrimahaas ku aadan ayaan wararkeena ku eegi doonaa wararka kalena waxaa kamid ah magaalada Kismaayo waxaa lagu qabtay dhalinyaro aad u fara badan iyagoo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin al-shabaab ciidamada Shiinaha iyo India dagaal culus ayaa ku dhexmaray xuduudda ay labada dal wadaagaan wararkaas iyo kuwa kale oo dhameystiran ayaad wararkeena maanta kaga bogan doontaan haddii aad kamid tahay saaxiibada ku cusub channelkan wararka ee Samakaab TV subscribe inoo saaro ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran muuqaalkana like saar si aad markasta u hesho macluumaadka iyo xogaha aan halkan ku baahino haddii aad nagala socoto dhanka Facebook wararka Samakaab TV page-kan soo follow garay like inoo saar si iyana aad markasta u hesho macluumaadka iyo wararka aan halkaas ku baahino u diyaar garooba qodobadii aan soo sheegay iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaan joognaa cirka meel kasta oo qadara caqabad nama jooji karto buuraha weyn oo laga baqo gacan baan la gaarnaa waa hagaag wararkeena waxaan ku bilaabaynaa magaalada balad xaawo ee ku taalla xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ee gobolka Gado sida aad horey ula socoteenba dagaal ayaa ka dhacay kadib markii maleeshiyaad taabacsan Jubbaland ay magaalada gudaheeda xalay meelo kamid ah qabsadeen balse ciidanka gaarka ah ee danab ayaa waxaa la soo sheegayaa inay magaalada dib ula wareegeen ciidamada gorgor ayaa mar kale dagaal rogaal celis ah ku qaaday magaalada balad xaawo markii dambana waxaa suurta gashay inay gabi ahaanteedba gacan ku haynteeda la wareegaan ciidanka gorgor ayaa rogaal celis dagaal ah magaaladaasi ka bilaabay saaka subaxnimadii hore wararka naga soo gaariya gobolka Gado ayaa sheegaya in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gorgor ay dagaal culus magaalada ku qaadeen meelihii ay joogeen maleeshiyaadka Axmed Madoobe ayayna gabi ahaantoodba ka saareen ila deegaanka ayaa inoo sheegay in haatan ay xaaladdu aad u degan tahay meelihii ay ku sugnaayeen ciidankii wasiirka amniga ee Jubbaland Janana ay haatan ku sugan yihiin ciidanka Soomaaliya labada dhinac ayaa isweydaarsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo xaaladdu ay ahayd xilligaasi mid aad u kacsan macadda ilaa ay haatan qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi mar kale magaalada balad xaawo saakay dib uga bilowday si kastaba dowladda Soomaaliya ayaa dagaalkan ku eedeysay inay Kenya ku lug leedahay waxaana ay shaacisay in ay jabhad Kenya gudaheeda laga asaasay magaaladaasi weerar ku soo qaaday isla wararkaas haddaan horey u sii wadno dowladda Soomaaliya waa ay ka hadashay dagaalkaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in gaadiidkii iyo hubkii magaaladaas dhexdeeda lagu arkay oo maleeshiyaadka taabacsanay Jubbaland ay wateen ay ahaayeen kuwa ay leedahay dowladda Kenya sidoo kale waxa uu tilmaamay wasiirku in dagaalkaas fallaagada looga adkaaday kuwaas oo laga soo abaabulay gudaha dalka Kenya oo xuduud la leh Soomaaliya ugu dambeyn fallaagadii iyo ciidankii shisheeye ee weerarka ku soo qaaday Garbaharey ciidanka Soomaaliyeed ayaa ka adkaaday ayuu yiri wasiirka warfaafinta Usmaan Dubbe oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu xusay in ku dhawaad 100 askari oo ka tirsan jabhadda weerarka ku soo qaaday magaalada balad xaawo ay ciidanku gacanta ku dhigeen isagoo oo sheegay in dhawaanba ay soo bandhigi doonaan muuqaalo hordhaca oo aan ka helnay magaalada balad xaawo waxaa ku jira ciidan fara badan oo indhaha laga xiray kuwaas oo ciidanka dowladda federaalka ay ku hareereysan yihiin ugu dambeyn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga adkaaday oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya
shacabkooda iyo dadkooda. waan jeclaa inaan halkan ku soo bandhigno jabka gaadhay iyo maxaabiista la qabtay oo ku dhow 100 in ku dhow 100 maxbuus oo dagaal la qabtay. laakiin wiilasha la soo adeejiyo wiilashayadii ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacaynin waliba ilaa dii qori dhacayee oo wiilashayadii dhaqanka Soomaaliyeed diinta Islaamka xeerarka caalamiga gaar ahaan Geneva Convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka intuba waxay noo diidayaan inaanu halkan ku qaybino sawirro. laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego in laga qabtay jabhadii fallaagada ahayd 100 in ku dhow. xaaladda beled xaawo ayaa haatan yara degan, balse waxaa jira dhaqdhaqaaqyo aad u culus oo magaalada gudaheeda iyo banaankeeda laga dareemayo. warar kale oo aan helnay ayaa sheegaya in ciidamo fara badan ay dowladda Soomaaliya ka qaaday magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolka Gado si loogu xoojiyo magaalada beled xaawo ciidanka jooga. magaalada beled xaawo warar kale oo naxdin leh ayaa ka soo baxaya. 5 caruur ah ayaa dhintay kadib markii uu madfac ugu tagay gurigooda. 5 caruur ah ayaa ku dhintay madfac ku dhacay gurigooda. waxaa weli isa soo tariya khasaaraha ka dhashay dagaalka ka socda gudaha beled xaawo ee gobolka Gado, kaas oo u dhaxeeyay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa maamulka Jubbaland oo horkacaya wasiirka amniga ee maamulkaasi Cabdirashiid Janan. dhimashada ayaa ilaa iyo haatan waxa ay gaaraysaa 10 qof, halka dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay sida aan wararka ku helayno. waxaa dadka waxyeelada ay soo gaartay kamid ah shacab aanan waxba galabsan. sidoo kale wararka ayaa sheegay in dadka dhintay ay kamid yihiin 5 caruur ah oo isku qoys ahay, kuwaas oo madfac ugu tagay hooygooda, waxaana ka badbaaday aabahood oo lagu magacaabo Cabdiweli Turmaak sida ay noo xaqiijiyeen ila deegaanka. xaaladda ayaa aad u cakiran, waxaana dagaalka uu weli ka socdaa qaybo kamid ah banaanka magaalada beled xaawo. labada dhinac ayaa guulo ka kala sheegtay dagaalkaas culus, iyadoona isgaarsiinta magaalada ay haatan tahay mid aad u xun. beled xaawo waxaa muddooyinkii dambe ka jiray dhaqdhaqaaqyo xoogan kadib markii dagaal ay kula wareegeen ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwa Jubbaland ay ku sugnaayeen duleedka magaaladaasi. si kastaba dowladda Kenya oo dagaalkan inay ku lug leedahay si weyn loogu eedeeyay ilaa ay haatan kama aysan hadlin. waa hagaag wararka kale ayaan si anba qaadeynaa ee u diyaar garooba idinkuna faahfaahintooda. tobaneeyo dhalinyaro ah ayaa lagu qabtay baaritaano ay ciidamada Jubbaland ka sameeyeen magaaladaasi Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose dhacda. ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa saacadihii aynu soo dhaafnay waxa ay gudaha magaalada Kismaayo ka sameeyeen baaritaano ammaanka guud lagu xaqiijinayo. baaritaanadan ayaa ahaa kuwa ay ciidamadu si gaar ah uga sameynayeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale dadka iyo waliba gawaarida isaga kala gooshaya xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo. ciidamo aad u hubeysan ayaa lagu arkayaa wadooyinka waaweyn iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo, kuwaasi oo guri u baaraya xaafadaha guud ee magaalada Kismaayo. saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland oo xiriiro kala duwan la sameynay ayaa waxa ay noo sheegeen in ay baaritaanada yihiin kuwa looga hortagayo falalka ammaanka lidiga ku ah oo muddooyinkan dambe Kismaayo ku soo badanayay. saraakiisha ayaa dhinaca kale waxa ay sheegeen in howlgalkan ay ku soo qabteen ku dhawaad 150 qof oo markaa looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. dadka badankood la soo qabtay ayaa u badan dhalinyaro oo laga qabtay xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan xaafadda Farjano. waxaana saraakiisha hay'adaha ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ay sheegeen in saacadaha soo socda ay natiijada baaritaanada ay la wadaagi doonaan warbaahinta. sidoo kale waxa ay sheegeen inay xilligan baaritaano kala duwan ay ku wadaan dad yowga looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. hay-adaha ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa muddooyinkan dambe waxa ay kordhiyeen baaritaanada guud ay ka sameynayaan xaafadaha magaalada Kismaayo, kuwaasi oo ay saraakiisha ammaanka ee Jubbaland ay sheegeen in looga hortagayo falalka ammaanka lidiga ku ahi. muddooyinkan dambe magaalada Kismaayo waxaa ku soo badanayay falalka ammaanka lidiga ku ahi, kuwaasi oo inta badan lagu beegsanayay mas'uuliyiinta iyo xarumaha ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland. askar ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudaha dalalka Hindiya iyo Shiinaha ayaa ku dhaawacmay kadib isku horimaad labada ciidan ku dhex maray qayb ka mid ah xuduudaha labada dal ay wadaagaan.
warbaahinta shiinaha ayaa laga soo xigtay in ciidamadooda oo ku jira howlgal roonda ah in ciidamada hindiya weerareen iyaguna ay ka jawaabeen waxaana weerarkaasi uu ka dhacay xuduudda dhanka magaalada la yiraahdo Saakima. wasaaradda gaashaandhigga shiinaha waxay sheegtay in dagaal saacad ku dhawaad socday uu jiro khasaarana uu gaaray labada dhinac. warkan inta uu gaarsiisan yahay khasaarahaas laguma sheegin. dowladda hindiya waxay dhankeeda sheegtay in ciidamadeeda xuduudda jooga ay ka hortageen ciidamo shiinaysa oo isku dayay inay dhanka hindiya usoo gudbaan. isla goobtan bishii juun sanadkii hore 20 askari oo hindi ah ayaa ku geeriyootay kadib dagaal ku dhex maray ciidamada labada dal shiinaha iyo hindiya. intaas ayaan saaxiibadeena qiimaha badan oo wararkii kusoo gabagabaynaynaa. nabadgelyo ammaano Allah.